وعن مركلة صاحب يال adiga muuqaalkan daawanaya haddii aad doonayso inaad soo iibsato computer ama laptop hadba waxa u taqaano waxa laga baahan yahay inaad taqaano computerkaas ama laptopkaas waxaad ku xulan lahayd waxa laga yaabaa inaad leedahay saaxiibka ama saaxiibada ayaa kula soo gadaysa computerka ama laptopka haddaba muuqaalkan waxaan kugu tusinayaa in adiga muuqaalkan daawanaya aad soo iibsan karto computerka ama laptopka waxaana muuqaalkan kugu sheegayaa meelaha laga fiiriyo markii la soo iibsanayo computer ama laptop waxaan ku sheegi doonaa oo hal kugu kala dhigi doonaa markaad soo iibsanayso laptop ama computer hadba waxa u taqaano meelaha aad ka fiirin lahayd laba ayaa kala qaadi doonaa midna waa dahaarka guud ama qolofka guud ee computerkaaga marna waa computerka ama laptopka waxa ku dhex jira ama gudihiisa ah qaybta koobaad ayaan kugu hormarayaa oo ah dahaarka ama qolofka guud ee laptopka ama computerka aad doonayso inaad soo gadato maxaad ka fiirinaysaa operating system computeradu ay kala duwan yihiin adiga ayaa lagu talagalay inaad xulato kan kugu habboon operating system waxaa la yiraahdaa waa waxa computerka ka dhigaya inuu shaqo galo tusaale bini'aadamku si uu noolaado ama uu shaqeeyo waxa u baahan yahay cunto iyo cabitaan inuu helo hadduu taas waayane shaqadii iyo wixii oo dhan meesha ay ka baxayaan si la midana laptopka iyo sidoo kale computerkuba waxay muhiim u ah ama waajib ah inay helaan operating system markii ay helaan ayay shaqo geli karaan operating systemyada ilaa iyo 3 ilaa iyo 4 ayaa loo kala qaadaa adiga mid ka rabta ay ku xiran tahay mid waxa soo saaran shirkadda Microsoft oo waxa loo yaqaan Windows-ka ilaa iyo wuxuu gaarayaa Windows 10, Windows 7, Windows 8 way kala duwan yihiin iyo sidoo kale mid kale ay soo saartay shirkadda Apple oo loo yaqaan Mac kaasi waa uu ka duwan yahay kan kale ee shirkadda Microsoft ay soo saartay ee loo yaqaan Windows sidoo kale waxa jira mid kale ay soo saartay shirkadda Google isna loo yaqaan Chrome adiga haddii aad tahay arday ani ahaan waxaan tala ku sii lahay inaad doorato labada operating system computerada ay ku shaqeynayaan sida Mac oo kale oo ay leedahay shirkadda Apple iyo sidoo kale Windows-ka oo ay leedahay shirkadda loo yaqaan Microsoft labadaas ayaa ku habboon waxbarashada muuqaal daawashada isticmaalka caadiga ah ee bulshada labadaas ayaa ku fiican ani ahaan labadaas mid ka mid ah dooro ayaa ku dhihi lahay sidoo kale waxyaalaha ka fiirinaysa wajahada guud ee computerka ama laptopka soo gadanayso waxaa ka mid ah design naqshada computeradu way kala duwan yihiin markii loo fiiriyo naqshada computerada qaar waa 360 degree oo ah computer isku laalaamaya oo sida rabta ka dhigi karto iyo sidoo kale computer kale oo loo yaqaan hybrid compatible oo ah computer kala bixi kara la isku dhigi karo sidoo kale computer keyboard aad meel iska dhigi karto aad isticmaali karto kaliya screen-kii oo gooniya labadaas iyo kuwa kale oo aan kala bixin oo caadi isku laalaamaya haddaba design-ka ama naqshada aad dooranayso adiga ayay ku jirtaa ani ahaana haddii aad tahay arday waxaan kugu doorbirayaa midka hybrid-ka ama compatible-ka ah ama midka 360 degree ah sababtoo iyaga ku fiican markii la joogo waxbarashada laakiin haddii aad rabto xarako iyo wixii la midka ahba hybrid-ka ayaa qurux badan ayaa isleeyahay sababtoo ah waa mid la kala bixin karo marka rabtana aad isku xiri karto naqshadaasi adiga ayay ku khusaysaa ka aad dooran lahayd ama midka aad jeceshaa markii xigta aad ka fiirinayso wajahada guud ee computerkaaga ama laptopkaaga waxa ay tahay screen-ka ama shaashada computerkaaga waxaa jirto 13 inch waxaa jirto 14 inch 15 inch 16 inch ilaa iyo 17 inch kuwa kala duwan waa ay jiraan haddaba adiga ayay ku xiran tahay 13 inch waa ay ka weyn tahay 14 inch yani 13 inch waa yar tahay waxa ka sii weyn 14 inch 14 inch waxa ka sii weyn 17 inch waa ay kala duwan yihiin haddaba waxa u isticmaalaysa ayay ku xiran tahay tusaale haddii computerkaaga ama laptopkaaga u isticmaalayso design-iska in lagu sameeyo ama muuqaal sameynta waxa qurux badan inaad soo gadato 17 inch laptop ah ama haddii aad ku isticmaalayso muuqaal daawasho oo kale 14 inch waa iska caadi haddaba adiga maxaad ku qabanaysaa ayay ku xiran tahay haddii IT ama engineering aad tahay
waxaan kuu doorbidayaa ama qurux badan inaad gadato computer laptopyada 17 inch ah. wajahada guud ee laptopkaaga waxyaalaha ka fiirinayso waxaa kamid ah screen resolution. Screen resolution waxaan ka wadaa muuqaalka sawirka ee screenkaaga. Tusaale, computerada waa ay kala duwan yihiin. Markii muuqaal laptopkaaga aad ku shido, quality-ga muuqaalkaas uu kusoo bandhigayo waa kala duwan yahay. Kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa resolution. waxaa jirto 720 mid ah, waxaa jirto mid ah 1080, mid waxaa jiro loo yaqaano 1K 2K. intaas waa quality-ga ay wax kusoo bandhigayaan. haddii aad tahay qof designer ah ama muuqaal sameeye ah, waxaa kugu qurux badan inaad isticmaasho laptopyada resolution-kooda uu yahay ilaa iyo 1080 ama wixii ka badanba. haddii aad tahay sidoo kale qof muuqaalada iska daawado oo keliya ama filmaanta ama waxyaalo kale usoo gatay, iyadana waxaa fiican 70 adiga ay ku xiran tahay midka aad jeceshahay inaad soo gadato. ani ahaan waxaan kuu doorbidaya inaad soo gadato 1080, asiga ayaa qurux badan. ugu dambeyn, qaybtan waxaas leeyahay waa qaybtii koowaad ee si guud wajahada computerka. markaad soo gadanayso ama laptopka iraade waxa uu taqaano, markaad soo gadanayso gudihiisa maxaad ku xulanaysaa, iyadana ila dhageyso. qaybta hadda kuu soo tiriyay waa wajahada guud, qolofkiisa guud. hadda waxaan kuu tirinayaa gudaha laptopkaaga waxaad ku xulan lahayd. ugu horeyn, CPU. CPU waxaa laga soo gaabiyey Central Processing Unit, waana meesha ay ku soo kacayaan daatooyinka computerkaaga ama laptopkaaga ku jira. CPU waa meesha ugu muhiimsan ee laptopkaaga, waana muhiim inaad si taxaddar leh iskaga fiiriso. tusaale, CPU wuxuu u qaybsamaa Core i3, Core i5 iyo Core i7. Core i3-ga waxaa ka fiican oo ka awood sareeya Core i5. Core i5-ka waxaa ka awood sareeya Core i7-ka. waxaa jira mid intaasoo dhan ka hooseeya oo loo yaqaano Dual. hagadankaas ma qurux badna, mana fiicna, culayskiisa ayaa aad u badan. Core i5 ayaa ugu fiican inaad iibsato haddii tusaale aad tahay qof IT baranaya ama engineering baranaya. waxaan kugu doorbidayaa inaad isticmaasho Core i5 iyo Core i7, labadaas mid. tusaale, Core i7 waxa uu leeyahay generation waxa loo yaqaano generation 1, generation 2, generation ilaa generation 10. hadda waxaa jiro ilaa iyo generation 10. sidoo kale Core i5 asna sidoo kale waxa uu leeyahay generation. mid kasta midka uu ka sareeyo waa uu ka lacag badan yahay. ani ahaana waxaan kugu doorbidi lahay haddii aad qaadanayso Core i7 oo kale generationkiisa 7 ama 9 ama 10. haddaad qaadanayso sidoo kale Core i5 asna sidoo kale meelahaas oo kale inaad gadato, sababtoo iyaga ugu fiican. generation markaa maqashana waa midka ugu dambeeya ee la soo saaray, mid kastana mid kale ayuu wax dheer yahay. hagaag, markii la joogo sidoo kale qaybtan CPU-ga ah, CPU-da waa ay kala duwan yihiin. RAM-ku waa meesha sida ku meel gaarka ah ee wax loogu keediyo computerkaaga. tusaale, haddii program data wata aad soo kiciso, programkaas halka uu kusoo kacayo uu datadaas uu kusoo kicinayo waxa loo yaqaanaa RAM, waa temporary storage. RAM-ka waa meelaha laga fiiriyo computerka qaybta gudaha ah. isaga waxaan tala ahaan ku siinayaa markaad soo gadanayso laptop, waxa uu leeyahay size kala duwan. waxa ugu yar waa 2 ilaa iyo 4. ani ahaan waxaan kugu doorbidayaa inaad soo qaadato RAM-ka midka uu yahay 8, sababtoo ah RAM-ku haddii uu kugu yaraado culayska computerka ayaa badanaya, maadaama meesha temporary storage-ka ay tahay. haddii uu batana xawaara computerkaaga waa uu siyaadayaa. ani ahaana waxaan kuu doorbidayaa inaad soo gadato RAM, computer RAM-kiisu uu yahay 8 iyo wixii ka badan. 4-ku waa culisiya. haddii marba aad tahay qof IT ama engineering ah, waxaa kugu fiican 8. haddii caafimaad iyo waxa ama muuqaal daawasho oo keliya ay tahayna 4-ka soo iibsan ayaa ku dhihi lahaa. meelaha kale oo aad ka fiirinayso laptopkaaga ama computerkaaga gudihiisa waxaa ka mid ah storage. storage-ka waa meesha ugu muhiimsan ee laga fiiriyo computerkaaga ama laptopkaaga, waana qaad uu qaadi doono ama baaxadda uu wax ku qaadi doono laptopkaaga ama computerkaaga. waxa ugu fiican
waxaa loo qaybiyaa si guud horta storage-ka laba qaybood oo loo yaqaano HDD iyo sidoo kale SSD. labadu maxay kala duwan yihiin yaana fiican? hagaag HDD-ga waa laga fiican yahay sababtoo ah HDD-ga markii wax la soo kicinayo muuqaal la daawanayo program la soo kicinayo xogaha wax akhrintiisu waa yara culus tahay, laakiin waxa qurux badan SSD-ga. ogowna SSD-ga aad ayuu qaali u yahay, waana kuwa ugu qaalisan hadda xaaladan ama xilligan la joogo. SSD-ga waxaa laga yaabaa inaad hadda hesho 200 GB 250 GB. hadda xilligan la joogo Soomaaliya kama helaysid in ka badan 500 GB. shirkadaha qaar waa bixiyaan, laakiin aad ayuu u yiri sababtoo dadku ma wada gadan karaan, waa qaali. haddaba haddii aad tahay IT ama designer, waxaan kugu doorbidayaa inaad gadato SSD sababtoo ah storage-ka SSD ayaa aad uga fiican midka HDD-ga ah. ugu dambeyn, gudaha computerkaaga meelaha aad ka fiirinayso waxaa ka mid ah input and output connectivity, oo ah meelaha computerka ama laptopka flashka loogu xiro chargerkiisa meesha uu ka qaato, sidoo kale meeqa flash ayaa ku xirmi karta. guud ahaanba waxyaabahaas oo kale godadka computerka uu leeyahay inaad ka fiiriso waa meelaha ugu fiican ee la fiiriyo. markaad soo gadanaysana isku day mid god kasta inaad browse inuu shaqeynayo iyo in kale. waxaas leeyahay si guud laptopyada waxaa loo qaybiyaa iyagana laba qayb, kuwa second ah iyo kuwa sidoo kale cusub ah. Soomaaliya markii la joogo badanaa iyaga waxaa la keenaa second. ani ahaan waxaan kuu doorbidayaa inaad soo gadato kuwa cusubka ah, second iyagana waa soo gadan kartaa. muuqaalka waa u dheeraada ayaa isleeyahay. labadaas qaybood ayaa ka fiirin kartaa marka aad computer ama laptop aad soo gadanayso. hagaag waa soo gabagabeynayaa saaxiibayaal. haddii aad ku wareertay ereyga markaan isticmaalayo computer iyo laptop, labadu waa isku si. haddii aad soo gadanaysaa laptop, inta aan kuu soo sheegay ayaad ka fiiri doontaa. haddii computer caadi ah oo desktop aad soo gadanayso ama oliwa nooc rabahaadana, isla inta aan kuu soo sheegay ayaad ka fiirinaysaa. waa isku sidii. waad ku mahadsan daawashada muuqaalkan saaxiibayaal. waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad la wadaagto saaxiibadaada. haddii ay jiraan saaxiib hadda dugsi sare ka qalin jabiyay oo jecel inuu soo gato computer ama laptopna, qaybta faalada comment ula wadaag. waad ku mahadsan daawashada muuqaalkan. waxaan isleeyahay wax badan waad ka fahantay. waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagto saaxiibadaada. waxay noo balama muuqaalkan iyo muuqaalka xiga. waxaan kuu rajeynayaa gool wacan.